sababtoo ah wuxuu bidhaamiyey si officialna u sheegay warka caawa ra-iisul wasaarahana ku jirtay in doorashadii uu hagi doono ra-iisul wasaaraha. waxaa mudaa adduun weynihii iyo ummaddii soomaaliyeed runtii dadkii aad bay u daalan yihiin. doorashada isjiidkeeda waxyaabaha dhibaatada hor kale ee dadka cabsida ku keenta waxaa ka mid ah dalka in khaladaas uu galo, dalkii in mustaqbalkiisa loo cabsado runtii muddada dheer lasoo dhisayey. waqti kaloo badan in lasii lumin doono aniga ma qabo. qof kasta oo runtii islahaa maanta sidii waxaaga ku heli kartay doorashadaas ha kula ekaato waxaysan muuqanaynin. maanta waxaa la joogaa waqti gabagaba ah. aniga waxay la muuqataa in doodihii inteeda badnayd ay soo gabagabowday. maanta wixii ka dambaysana ay iswaajihi doonaan ra-iisul wasaaraha iyo ciddii kale runtii doorashadaas hor istaagta. beesha caalamkana waxaa moodaa markan mar ka duwan ishii hore ay ku eegi jireen il ka duwan inay ku eegayaan oo ah in doorashadaas degdeg loo bilaabo. ciddii loo arka in doorashadaas carqalad ku tahana meel looga soo wada jeesto. runtii dadka soomaaliyeedna culays badan baa haya. qofkii kursi u sharaxan ama baarlaman ha noqoto ama madaxweyne inuu ololihiisa iyo si soomaalinimada inuu wax ku raagsado unbaa hadda u furan. arrintii intaasaan uga baxaya. ani aad baan idiin salaamaya. asalaamu calaykum. senator aad u mahadsan tahay. su-aal yar kooban haddaa ku weydiiyo shirka lagu saxeexayo heshiiska 17 September oo la filayo inuu qabsoomo maalmaha soo aadan haddii alla idmo. madaxweynaha u yeeri jiray maamul goboleedyada asagaa shir guddoomin jiray. hadda ma waxaa shir guddoomin doona oo u yeeri doonaa ra-iisul wasaare Roble? haddaanan khaldaneen in shirka uu iskugu yeerayo Roble waa muuqatay. ma hubo laakiin madaxweynaha warkiisa inay ku jirtaan filayaa inuu arrintaas ra-iisul wasaare Roble la direeyo. marka waxaan u malaynayaa meeshaas in ra-iisul wasaare Roble doorkiisa ay tahay wixii doorasho la xiriira maanta wixii ka dambeysay. marka ama madaxweynaha warka uu yiri waraaqa ku saxiixo ama warka uu yiri ayaa waxay yihiinba go'aan rasmi ah oo go'aan madaxweyne ah. marka hadda kadib ma jiri doontaan u malaynayaa beesha caalamka hana casuunta ama beesha caalamka noo yeerto. ra-iisul wasaaraha warkiisa caawan waxay ku jirtay inuu shirkaas ku dhawaaqi doono iskugu yeeri doono. marka meeshiisa ka caddahay cidda shirka bayaaminaysa inay asaga yahay. aad u mahadsan. waa mahadsantahay senatore. waana yidhi madaxweynuhuna markii baarlamaanku codeeyey kadib uu sheegay in shirka u yeeritaanka maamul goboleedada uu ra-iisul wasaaruhu yeelanayo xusuumaadooda maantu sheegay. maxamed waa dhamaysaa u malaynayaa senatore. hadda haddii shuruudo cusub ay ka yimaadaan dhinacyada kale mucaaradka iyo dowlad goboleedyada maxay dowladdu samayn doontaa bay kula tahay? senator ayub okombo senatorku waxaa laga yaabaa kool oo kale inuu soo galay oo mashquul galay marka khiyaarta kale kusii soco. hadda kuu soo laabtay mi maqashaa codkaaga? waayo waa ku maqalnaa. maxaa deeq waxaan malaynayaa su-aal uu ku weydiiyey. ani waxaan ku weydiiyey haddii shuruudo cusub hadda la maqlo oo mucaaradka ama dowlad goboleedyada ay ka yimaadaan xagee maxay kula tahay waa lagu xallin doonaa? horta waxaa ii muuqataa waxyaabihii farsamada baydhaba in lagu xaliyaa moodaa oo talooyin lasoo jeediyaa jira. marka talooyinkaas mar kale inay ku dul feegaaraan oo lasoo bandhigo way muuqanaysaa. laakiin aniga dee sida ii muuqato dee waa meeshii khilaaf iyo dood iyo war laga keeni lahaa waa ka soo dhammaatay. marka dee nimanka musharaxiinta keliya hadda waxaa u furan aan u malaynayaa inay dhahaan madaxweyne farmaajo uusan nala tartamin. marka taasna dee qofka muwaadinka ah joos dastuuri ah ama xaq dastuuriya siinaya qofka inuu codeyn karo loona codeyn karo. marka dee dood kaloo hartay oo aan filaayo ma jirto. marka ma hubo in aysan saaxiibaday ay dhihi doonaan shuruudo hor lahaa jira. marka caawa ra-iisul wasaaraha waa hadlay. hadday dadka waxgaradka ama ummadda soomaaliyeed ama beesha caalamka cid kasta hadda waxaa u muuqato waxa keliya furan waxay tahay in dalka doorasho la aadiyo. marka dee qofka bini'aadanka ah hadduu jaxdiidan yahay wax waddo kasta u furan oo wax ku diidi karo.
marka waraaqdan cadow ku dhihi karaa waa madowdahay marka taasna dee lama xukumi karo oo qofka asaga un bay ku jirtaa in la qanciyo laakiin markii 17 September laga hadlayo waxaa waaye saxiixayaasha inay mar kale is hor yimaadaan doorashada saxiixeedii dhaqangalkeedana in laga shaqeeyo aad u mahadsantahay Axmed waa mahadsantahay senator waqtigaagana waa kaaga mahadcelinaya sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa saaxiibadan ugu soo biiray dhammaantiin soo dhawaada si gaar wasiir quraan jecel agaasiye maxamed shiin iyo cali samatar oo stateka kusoo biiray agaasiye maxamed deeqa ku rajinaya noo soo wada agaasiye sii wad nabad wasiirka soo dhawey wasiir cabdullaahi quraan jecel wasiir soo dhawow aad baad la socotaa siyaasadda iyo updateskeeda si guud marka laisku qaado waxa socday maxay kula muuqdaan maxaase la rajayn karaa oo shacabku filan karaa maxamed male maqlayaa si wanaagsan wasiir maxamed mahadsanid adiyo kombe iyo maxamed hadde dhinac marka laga eego waa ifafaalo fiican weeye oo anagu hadda si guud waqti umad soomaaliyeed baan nahay waxaan doonaynaa dalku inuu noo dego inayna ka dhammaato buuqa iyo xasarada is-haysashadu inay naga dhammaato baan doonaynaa madaxweynihii maanta wuu sheegay wuxuu yidhi anigu hashi waxaan ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha baan ku wareejiyey ra-iisul wasaaruhu hadda waa hadlay wuxuu yidhi aniga ayaa doorkayga qaadanaya intaa markii saa loo akhriyo ay sidaa u tahay waxaan isleeyahay wax fiican baa laga shaqeeyey oo macno leh iyo deganaanshihii dalka iyo doorashadii in loo soo dhawaaday oo awal aad uga fogaaday shuruudaha iyo